هو قبل قبل ما تليقوس ولا قبل هذا لكن اللي قبل بقى sheekada saylac ka dhacday ayay kaga duwantay waa meel nabsi laga galay dulmiga laga galay ee beesha ciise wuxuu ahaa dulmi xasuuq lagu geysay islamarkaana si aan loo meeldayn loo xasuuqay ee beesha ciise ayagoo iska kaashanaya reeraha Samaroonka iyo Isaaqa iyo reeraha kale ee Soomaaliland wada dega waxayna sidoo kale ay u geyseen xasuuq aan loo meeldayn iyadoo magaalooyin ay ka mid tahay Burma Zaylacna la sheegay inay iyagu aysan lahayn laakiin taa bedelkeeda dulmigii loo geysay waxay ku bedeleen inay soo dhaweeyaan 18 May iyo inay si hab maamuus leh oo wanaag leh inay ugu dabaaldegaan iyagoo oo intaa dhibaato loo geysay dumarkoodii la kufsaday caruurtoodii la dilay haweenkoodii iyo raggoodii waayeeshaana laga barakacshay halka ayay haddana waxay muujiyeen nasabnimo iyo inay muujiyaan adkaysanaan iyo in Somaliland ay la mid yihiin oo ay ka dajecel yihiin xitaa reeraha oo awoodda ugu badan la Isaaqa iyo Samaroonka iyagu ay kaga xigaan ay ku sheegeen inay ka awood badan yihiin Marwa Faadimo Aadan ayaa si toos ah u shaacisay in beesha Ciise ay tahay reer nasaba iyadoo si kalgacal loogu soo dhaweeyay Zaylac iyo in Zaylac looga dabaaldegay xitaa si aan looga filnayn in looga dabaaldego Somaliland 18 May waxaa cabsi xoogan laga qabay inaan looga dabaaldegin gudaha Zaylac maadaama reerka halka u badan ay degaan cabsi xoogan laga qabay inaysan u dabaaldegin xiliyo iyo colaadeed ay ka dhex taagneed halka waxay muujiyeen nasabnimo inay u dabaaldegaan oo aysan oo ay la mid ahaadaan deegaanada kale ee Somaliland laakiin iyagu kaligooda inaysan faqad ka ahaanin waxay soo dhaweeyeen cid kasto ka socotay dawladda ee Somaliland iyo cid kasto u dabaaldegaysay calankeeda iyagoo xitaa habeenkoodii iyo raggoodii banaanka u soo saareen qaabka ciyaarka ee reerka Ciise u gaarka ay ku soo bandhigay halka iyagoona u dabaaldegay 18 May ee maalinta ee Somaliland haddaba aan ku sii daayay ee muuqaalkeeda sheekada saylac ka dhacday ayay kaga duwantay waa meel nabsi laga galay waa meel raqabada lagaga taagnaa waa meel hoos eegistu ku yarayd gobolka Salal dib u dhac badan buu ku dhacay oo ay ku jiraan reerka deegaanka iskale ee halkaa yaala oo reer dadku waxay yaqaanaan dadka qaylqayliya Ciise xaq u leeyahay heelabaan leh waliba dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay xanuun baa idinku jira aan hadhaynin oo cuqdada baan imika jigjiga tago sida la iigu soo dhaweynayo wada yaabaysa sida lagu xana qaadayo dadka sida lagu kala karaamaynayo wada yaabaysa laakiin inaga kaasaa soo galay maxay baa yimiday qaabadan yar intan leegun baynu ka haynaa isweer in cidinoo soo gasho mar rabno bari baa nala dhameeyay bari baa nala mariyay dawladii waqooyi galbeed joogtay ee faqasta ahayd miyaanu reer sheexi saxaaq afka marin laanta cidii naguma haysato wadankan inaga iska leh laakiin dadnimada iyo dad la socodku hay naga go'naado CM aad baan salaamaya made aidin May 35 sanadood ayaa maanta ayay ku buuxday waa meel oo waxaanu leenahay oo qarankayaga iyo dadnimadayada iyo aanu ciidayada oonu kasbanay ilaahay aanu ku barinay ayaanu gacanta ku dhignay marka waa maalin aanu iska leenahay oo xirnimadayada muujinaysa si fiican baa loo qabtay oo aad u qurux badan gudidii qaban qaabada lahayd oo Cabdalla Maxamed Carab kow ka yahay dhammaan intii kale ee la shaqaysay intaba waxaan leeyahay hambaliyo happy 18 May dalkayga iyo dadkaygana waan salaamayaa madaxweynahayga qaranka waan salaamayaa ummadda Somaliland oo dhanna waan salaamayaa meel kasto ay joogto daliya dibadba hambaliyo si fiican baan inoogu dhacday arintaas waxay kaga duwaneyd maanta horta qiso mucjiso noqotay oo aan hore loo arag cidina aanay filayninba oo aad moodo in aan dadkayagu aanay hoos u eeg aan jirinba ayay maanta kaga duwantay sheekada saylac ka dhacday ayay kaga duwantay aidin miyadii hore ee 34 sanadood oo hore dhacay maanta ka
taa maanta dhacday ee saylac ka dhacday ayaa kufuuno axad kaga dhigtay wax walba waa qiso aan la arag wax mucjiso oo ummadda alla ku soo bixiyaa ma jirtaa waa meel nabsi laga galay waa meel raqabada lagaga taagnaa waa meel hoosu eegistu ku yarayd waa meel aqoonta Soomaaliland gebigeedu aad moodo in gebigu aanay danayn jirinba gobolka Salal dib u dhac badan buu ku dhacay oo ay ku jiraan reerka deegaanka iskale ee halkaa yaala oo reer dadku waxay yaqaanaan dadka qaylqayliya ee wacda gura marka reerkani waa reer idaable ayarska fadhiyo dhulkooda ilaahay wax siiyay reerkan waa la hagraday meeshana qiso kala taala aqoon la'aan baa jirto horta wax la yiraahdo ma garanayo meel ay ku dambeysay dadnimadii reerkayagu marka aqoontii dadka bini aadanka ee nala dega wadanka ama dadka nala lihi horta reerahayagu way ka maqantay ma garanayo halka ay qabatay odayaashayadii iyo dadkayagii dadka kala yaqaanay ee ummadda kala garanayay ee dadka kala saari jiray ee hibada lahaa ee aqoontoodu fishin ummadda yaqaan maanta dad ogaadeen kala garan weydo qabiiladooda waa nala degaan marka qisadani horta waa qiso nagu dhacday oo ka jirta imika wadanka iyagoo reerkayaga waxaad moodaa in aanu imika haybintii ummadda iyo garashadii ummadda Somaliland oo dhan bay tahay marka Somaliland oo dhan ma aha ee dadka deegaanada koonayaasha galbeedka bariga xiga dadka la dega way yaqaanantay iyo sida deegaanada loo kala leeyahay ma cid kasta oo meel ganimeen qofka reer qori lugud wixii bariga ka xiga maanu garanay uu garanayaatay annaga reer magaalnimada aan ugu badan kol hadaan miyoonay siiye ka jabiye digaag cunay waxay muujinaysaa in aanan ummadii deegaanka nala lahayd aanan warbakaay oo aanan waxay yihiin bakaran dad badan baa ilaa xalay ilaa habeen hore ilaa maslaxaadka ila soo hadlaya waxa wallaahi ya Faadumooy waxaan u haysanay inay magaalada Gadabuursi leeyihiin wallaahi saasaanu moodaynay imikuun baanu ogaanay berigii hore waxaan isulan jirnay islaanta maxaa dhakada ka saaray dadka maxay Gadabuursi u sheeganaysaa waanu ku soo gaadhnay mid baan ku sheegaya reeraha iyaga galbeedka dega ayay xujo dul taalaayo ciyaarta ama barnaamijka ka dhacay Saylac dad badan oo annaga abay waaqaca u muujisay reerka Isaaqa lagu yiraahdo waa qarandi forka ku badan hal mar buu jeestaa oo waxna arkaayo oo dadka ku toosaaye hore waxba umu ogeyn laakiin arinta Saylac ka dhacday reerka iyaga wax badan bay waaqaca u tustayo ay u soo jeedisayo ay u soo bandhigtay ilaa maanta oo intaas oo cisho ka soo wareegtay adduunka gebigiisa waxa haystaa waa arinta Saylac ka dhacday isweydiinteeda badatay reerkeed baa batay Allah da baxaysa qofkii ila soo hadlaaba Faadumooy qisaa dhacday buu leeyahay marka arintaasi waa arin ku soo korodhay ummadda Somaliland oo dadkana ciisana waxaan maqli jirnay caruurta ma imika waxa waa laga balaadhiyay baan maqli jiray dad badan bay ka balaadhiyeen ciisi dad badan bay ka balaadhiyeen ciise xaq u leeyahay helabaan leh ciise wuxuu xaq u leeyahay helabaan leh xeerkiina hal la sii daayo dawladnimada iyo amniga dawladda u xil saaran dad war ay ku keeneen oo danay leeyihiin ku wataan inaad adigu dhageysato ma aha amniga dawladda ka mas'uuliyadda marka horeba arintani qalad bay ku dhacday hadday ku dhacday marka la yiri sidan iyo sidan iyo sidan waxa lagu soo sheegay maxaad u sidaa amniga maxaad u sidaa ciidanka waxa weeyaan anaa ka mas'uula waxan wixii laakiin anaa ilaalinaya wixii ka soo noqda anaad igala xisaabtamaysaan baad leeday cidda waxan ka soo horjeedo Soomaaliya laakiin wixii lagu soo sheegay ee daddoonayeen hadaa dadka dhinacuuna eegto dhinacii kale waxba ka dhageysan arintaas waa qalad dawladana waxaan leeyahay labada reer abnigood iyo nabadgelyadoodana ha laga shaqeeyo
labada reerna laba reero iyagoo wada dhasho wax isu aweeyaan gacmaha la isu saaro ummadda Somaliland ka soo jeedana waxaan leeyahay rabshad iyo dagaal cidina uma taaghayso waaqi xunban waqti xun baynu ku jirnaa oo adag shaytaanka la iska naarabaan leeyahay oo ummadda hal la heshiisiyo dadkayga waliba reer galbeedka waxaan leeyahay allihiina ka cabsado oo sidaad wuxuu ogtihiin ku xumayn dad haw aamusnaanine sida ilaahay waka ilaahay qaraxaydi ka dul riday ummadda kala qabta ayl waan arkay reebtigay afarta ilmaharti ba aniga horta Saciid Maxamed Axmed siday u dhan yihiin iyo Maxamed ba aniga waa reebtigay gabadh anu qayaadi dhashaanahay ina xaaji Maxamed Cismaan bay dhashay aniga gebiga hartigu waa ii reebti waanan jecelay reebtigay barnaamijka ay sameeyeen ay nagu soo dhameeyeen reer garabna dad garabna qabtay oo maanta na jecelo intii hore aanu isaga soo dhownahay ayaan oo arkaa Puntland waxaan leeyahay de horta wax kasto dhacaba sidbay wuxuu socdaan siyaasad baa socota nin waliba ninkii uu wax ka xoqan karayo ayuu wax ka xoqanaya kulay danaynu iska leenahayba danbaynu iska leenahay waxaynu iska leenahay Allah waasiiciye baan leeyahay xalay ee shacaal laga taagay calanka Somaliland ee shacaalkay ku taala Ethiopia manikul wadada tareenku maray ku taala ee shacaal laga taagay xalay toole calanka Somaliland anigu cid kasto oo lagu gafsan yahay dhulbaanta maalintii la eryanayay ee dagaalkiisu aanu sanani ma uga hadlayo ma uga hadli jiray marka cid kasto oo laga gardaray aanu naagta taageertaan marka waxaan leeyahay ummadda ilaahay nabadda waxay ku dhaanta wax waliba nabad ku fiican nabadgelyo hadii la waayo waxba ma soconayaan dawladeydana maanta waxa hadlay wasiirkii arrimaha gudaha Cabdalle waxaan leeyahay maanta khudbadu jeediyay waati qarniga nimban qoraal uu durba soo dhigay ayaan akhristay buuni wasiirkii hore wasiirka buuni kullay dad badan oo dawladayada kamid ah oo aan waxba noogu filaynay Faaduma iyo dhaami lahayd buunigaahna loogu bedelaa aan oran lahaano wallaahi oo billaahi oo tallaahi qaar badan oo aan cirab biyana ka beydinaynin waxna aan ka riixayn oo kuraasida iskaga fadhiya oo waxaan ku dawlad wasiirnimada ama xilka waxaad u haysaa inaad wixii qalada dawladda ka difaacdo wixii saxana inaad ka sheegto qaar baan gabigoodba media hor imanin dawladda marka waxaan leeyahay buuni waxba yaan tii hore u ahaaye kii hore u ahaatoone dad kale lama soo abuurayo dadkan Somaliland dadka dawladaha yaqaana waliba ku qurux badan dadka dawladaha la soo shaqeeyay hore ayaa ku qurux badan in wax la siiyo marka buuni madaxweynahayga qaranka waxaan leeyahay dad badan oo kula joogu dhaamaya buuni meesha inoogu xarey horta ya buuni magacaw baan leeyahay nin la afa oo taariikhda Somaliland sidoo u haya oo dastuurka Somaliland qodob u akhriyaya oo ilaaha diintay galiyaan ku dhaartay ilaa maalintuu dalka soo galay ilaa maanta waxay dhishanariga laanta weeyaan buuni wax ka maqani ma jirto Somaliland dhabana weeyaan marka waxaan leeyahay anigu tii hore u ahaa iyo kii hore u ahaa aad baan u nacabnay si dawladayada imika oo waanu jecelay ummadda oo dhan inaanu isku dhex wadno buuni hal magacaabo baan leeyahay hal magacaabo buuni xukuumaddu wax taraya muxuu tari waayay wax badan uu arkayaan arkaynba kuwa nala joogay oo ay Puntland in halkeenan aynu uga dabaaldegno way dhici kartaa waxba la isku ma hayo cid wax isku haysaa ma jirto danaa la kala wada wataa laakiin dunta Soomaalinimada iyo jisadkeenu waa mid hal wixii naga dhaxeeya ma jirto meel kasto tago waliba dadka reer Somaliland waxaan leeyahay xanuun baa idinku jira aan hadaynin oo cuqdada ummadda kale markaan u tagna ama wadamada kale aan u tagno ama gobolada kale aan u tagna ama meel kasto oo jigjigada intay noo jirto dhaho heedha wallaahi oo billaahi oo tallaahi aan imika jigjiga tago sida la iigu soo dhaweynayo wada yaabaysa sida lagu xana qaadayo dadka sida lagu kala karaamaynayo wada yaabaysa laakiin inaga
kaasaa soo galay maxay baa yimiday qaabadan yara intan leegun baynu ka haynaa isweer in cidi noo soo gasho ma rabno inaynu hor socod samayno ma garanno inuu fishinkeenu dhaqaaqa ma doonayno waxaan leeyahay cuqdada inagu jirtaa miyaanay nagaba dhammaanayn beri baa nala dhameeyey beri baa nala mariyey dowladdii waqooyi galbeed joogtay ee faqasta ahayd miyaanu reer sheexi saxaaq afka marin yaa lafahanaynu gungunudnaaba la isku haystaa imika aad baan u salaamayaa cid kasta oo dhagaysata kliibkayga dhammaan somalilan oo dhan hambalyaan leeyahay hambalyo ha iska saaraan reer somalilan laakiin cuqdadoo dadka ha marti qaadaan ogaadeenka ha marti qaadaan abaskuusha ha marti qaadaan bartiraha iyo yabareega ha marti qaadaan dadka reer jabuuti ha soo dhaweeyaan ma jeerteenka ha soo dhaweeyaan ma reexaanka ha soo dhaweeyaan laanta cidii naguma haysato waddankan innaga iska leh laakiin dadnimada iyo dad la socodku haynaga go'naado ha waa qalad anu mar walba waxaan taaganay tayda iyo tuga horreysayba tayda iyo tuga horreysay iyo tug kastoo meel kastoo joogtaba waxaan leeyahay war ummadda aynu la soconno oo waxaan inagu yaalla aynu iska goyno haye waxaan inagu yaalla waxbaa soo galay waxbaa soo maxay waxbaa soo karaya meel walba waanu tegaynaa annagu meel walba waanu tegaynaa waana lagu soo dhawaynayaa dadkana sharaf iyo karaamaan u haynaa